السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا warkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka dhan. Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu soo dhaweeyay madaxweynaha dawladda Soomaaliya xil wareejintii uu ku wareejiyay inuu ra'iisul wasaaruhu uu maamuli doono doorashada dalka Soomaaliya. Daawadayaal wararka kale aynu hayna waxaa kamid ah wafdi uu hogaaminayo ergeyga Qatar ee Soomaaliya Dr. Mutlaq ayaa genikii dambe ee maanta ka soo degay garoonka caalamiga ah ee Aadan Cabdulle International Airport. Booliiska magaalada Kansas ayaa ku toogtay wiil xalay habeennimadii dilay laba wiil oo walaaladiisa. Roob saacado badan ka daayay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sababay khasaare badan inkastoo aysan jirin khasaare nafeed oo ka soo gaaray dadka ku dhaqan magaalada Hargeysa. Daawad haday ku tahay xilligii salaada waajibaadka alle soo tuko nuguna soo noqo hadii kalena daawasho wanaagsan hadda daawada nagu cusub tahay ina subscribe share iyo like hadii kalena saxaabtaada ula sii wadaag gabrielka fursi markasta wararka ugu dambeeyay caalamka Soomaaliya dhan ula socotid bartana kala socotid ra'iisul wasaaraha ayaa qodbadiisa waxa kamid ah sida tan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmaciin. ugu horeyn waxaan u hambaleynayaa dhammaan shaqaale weynaha Soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegaya maalintii shaqaalaha adduunka. waxaan uga mahadcelinayaa hawsha adag ee qiimaha badan oo ay qaranka u hayaan shaqaalaha Soomaaliyeed. intaas kadib maanta waa maalin taariikhi ah oo mudnaan gaar ah u leh geedi socodka nabadda, dimuqraadiyadda iyo dawladnimada Soomaaliya. waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo mar kale muujiyay tanaasul aad u weyn isagoo u damqanaya shacabka Soomaaliyeed iyo qarannimada. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda in uu aniga iyo xukuumaddeedu nagu soo wareejiyay hogaaminta howlaha doorashooyinka, amniga doorashooyinka iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka. anigoo rajaynayo in aan ku guuleysano hawshaas iyo mas'uuliyaddeeda muhiimadda u ah masiirka dalka una maareyno sida ugu wanaagsan hadduu Allah subxaanahu wa ta'ala idmo. waxaan uga mahadcelinayaa golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed sida mas'uuliyadda ku dheehan tahay oo ay u aqbaleen codsiga madaxweynaha oo ahaa in dib loogu noqdo heshiiskii 17 September ee hagayay hanaanka doorashooyinka dalka iyagoo tixgeliyay sidii looga gudbi lahaa duruufaha adag ee dalku marayo. xukuumaddu waxay ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga howlgali doontaa una soo bandhigi doontaa qorshayaasha doorashooyinka, amniga doorashooyinka iyo fulinta qorshaha amniga guud ee qaranka. walaalayaal waxaan rabaa in aan halkan uga cadeeyo shacabka Soomaaliyeed, dawlad goboleedyada, siyaasiyiinta iyo dhammaan daneeyaasha siyaasadda ee dalka in ay naga go'an tahay in ay dalka ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah oo daah furan iyaga oo aan cidna xaqeeda la doodsin. waxaan aad uga xumahay qalalaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho oo sababay khasaaro, barakac iyo welwel soo food saaray shacabka Soomaaliyeed. waxa ay ahayd nasiib darro aad u weyn oo laga baaqsan karay oo ay tahay in aysan mar kale nagu soo noqon. mar haddii xal laga gaaray arrimihii xasarada abuuray waxaan dhinacyada oo dhan ugu baaqayaa in ay nabadda nagala shaqeeyaan. dhammaan ciidamada qaranka ee geesiyada ah waa difaacayaashii qaranka, mana laha mucaarad iyo muxaafid. sidaa darteed waxaan farayaa in ay xiryahooda ku noqdaan kana fogaadaan in ay ku milmaan arrimaha siyaasadda. si loo xalliyo saameynta arrimaha siyaasadda ku yeeshaan ciidamada qaranka waxaan magacaabayaa guddi farsamo oo arrintaasi ka soo tala bixiyo. siyaasiyiinta waxaan ugu baaqayaa in ay ka fogaadaan hadallada xanafta leh iyo ficilada aan caawinayn nabadda, xasiloonida iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed. walaalayaal dalkan dhammaanteen waa uu naga wada dhaxeeyaa. dawlad goboleedyada dalka waxaan uga mahadcelinayaa doorkooda waxaana ka codsanayaa in ay nagala shaqeeyaan sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah. waxaan dhaqso ugu casuumi doonaa in ay ka soo qayb galaan
shirka golaha wadatashiga qaranka ee dhammaystirka arrimaha doorashooyinka si waafaqsan heshiiskii 17 Sebtembar iyo 16 February. shacabka Soomaaliyeed waxaan uga mahadcelinayaa dulqaadkooda. waxaan ku boorinayaa in ay garab istaagaan dowladnimada iyo dhowrista nabadgelyada. ugu dambeyntii saaxiibada caalamka waxaan ugu mahadcelinayaa garab istaagoodii dowlad dhiska Soomaaliyeed. waxaana ka codsanayaa in ay nagu gacan siiyaan hawsha culus ee na hortaallo. wafdigan oo uu horkacayo ergeyga Qatar ee Soomaaliya Dr. Mutlaq bin Majid Al Qahtani ayaa galinkii dambe ee maanta ka soo degay garoonka caalamiga ah ee Aadan Cabdulle International iyadoo ay wehelinayaan xubno sarsare oo ka tirsan wafuudda uu hogaaminayo Dr. Mutlaq bin Majid Al Qahtani. wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Bilaal Maxamed Cismaan iyo saraakiil ka tirsan arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay iyadoo ay wada hadallo kooban kula yeesheen wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Qatar danjire Cabdirasaaq Faarax Cali Taano. ergeyga gaarka ah ee dalka Qatar uu soo magacaawday dalkeena Soomaaliya ayaa lagu magacaabaa Dr. Mutlaq bin Majid Al Qahtani waana ergeyga gaarka ah ee wasaaradda amuraha dibadda ee dalka Qatar u qaabilsan dhinaca la dagaalanka argagixisada iyo dhexdhexaadinta khilaafyada. ergeygan ayaa ka soo qayb qaatay dhexdhexaadinta Taliban iyo Mareykanka. Qatar ayaa ka mid ah wadamada saaxiibada la ah ee caalamka dalkeena Soomaaliya gaar ahaan kuwa ka gacan siiya dhinaca mashaariicda horumarinta iyo taageerada dhinaca amniga ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. wallahi adeer arrintu arrin iska argagaxiyan xadin laba ahayd arrin si fajaa oo kadiis u dhacday annagu maanaan ogeyn wiilkan halada kolkii hore nin yar kuman baanu ku ogeyn oo ardadu ka mid ahaan jiray kabacdi markii hooyadii iyo dhinteen reerka ay horey musiibo ugu dhacday ayaa u malayn inuu wax daraag iyo waxaas wax ka bartay uu shaqaysanayay baa lagu yidhi oo uu shaqaysanayay marka xoogaa waxaa laygu sheegay inuu diinta aflagaadeynaya maalmahan dambe oo aada u aflagaadeynaya diinta waa feeg iyo sheekhyaash iyo been bay sheegayaan iyo wax saasoo kale ah bay dhalinyara saaka ii sheegeen marka wiilkii wadaasay qaaday wiilashu dadkay tukiyanayeen oo waxay taraawiixday dadka tukinayeen laba wiiloo waxay ahaayeen hal day u dhaxaysay ka hore 16 jir meelaha iyo ahaa kan dambana 13 iyo meelahaasaan u malay 14 mid qadbo ahaa على كل حاصل ويلشي وصدح ويسوى صعدة ويلقيي البابكي وركي وروان سوق الجري ولا إلهي تقدر كيسة ما أنا وكان تجيب عن دقاقي ولي وكان وحي السيسة ذا حبضان مغلي حبضوا وحي إلهي دوني باش كفوكتاي حبضي بيقولي يبيدو صدح ويل بيهايين مكاير أو إدود شيء إلا ويلش عبودي ويدود بوري وولنتين إدود دا كانت كويسو وحبريسي أو aad iyo aad juhdi u weyn ku bixisay marka anagoo iyadan kala xiriiri jiray oo iyaa mid la waayay ama wax dhacay iyadoo baan weydiin jiray wiilashii marka ka weyn oo Cabdiwaaxid leeyahay xabada ku bilaabay aad ka soo xabada madaxiisa aad u garaacay marka maskaxdiisa oo dhan darbiyay ay ku firidhay kii kaloo haddana ku soo noqdo saddex iyo wax uu soo haray dhowr halbo madaxa kaga dhuftay isagana yarkii albaabku aad u garaacay kii yarka ahaa isla uu dili lahay xabadii baa ka dhamaaday markaasuu cabayso cabayntu cabaynay yarkii laga furay albaabkii ay xidheen dheerka oo dhan inuu laayuu rabay sida maaragtay uu niyeysnaasdan la ii sheegay muxuu qoonsaday sheekh wax ku sheegi kara xoogaa wiilashan iyo diinta maadaama uu ka hadlayo diintu ay khaldan tahay oo lahaa wiilashiina ay noqdeen wiilasha dadka tukinaya muuqda oo aad u muuqda waxaan isleeyahay halkaa miyaa xiqdi ka galay
وهالكا مياه أرنتاس أي إيرستي والله ما قرن هايو لكن waxaad ii sheegtay sheekh Mustafa in wiilka hooyadiisa aabihiisba caruurta ay geeriyoodeen bal wax yar iyadan faahfaahin naga sii والله قصص وقصة يا ذو حنون بدن مركا إنان كجابسدان أذو جعلها وقصة يا ذو حنون بدن هذه العجيب أولى مركا حرم ملوي مريكا يروح الجوي قصص هذه مشهور تاي والله يا مرمنا roobkan oo saacado badan ka da'aya magaalada Hargeysa ayaa sababay khasaare maaliyadeed inkasta oo aanay jirin khasaare dhinaca nafaha ah oo ka soo gaadhay dadka ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. ciidamada dabdamiska ee caasimadda Somaliland ee Hargeysa ayaa maanta fidiyay gurmad kala duwan kaasi oo isugu jiray badbaado dad, gaadiid iyo guryo. Howlgalladaasi oo lagu soo wargeliyay ciidamada qoraal kooban oo ay soo saareen ciidamada dabdamiska ee magaalada Hargeysa ayaa waxay ku sheegeen in daadad ka dhashay roobabkaasi degmooyinka Maxamuud Haybe, Maxamed Mooge, 31 May iyo Gacan Libaaxa ay ka fuliyeen howlgallo lagu soo badbaadinayo dad iyo duunyaba. tirada dadka laga badbaadiyay daadadkaasi ayaa waxay ku sheegeen ciidamada dabdamisku in ay tiradoodu gaadhayso 172 qof. gaadiidka la soo badbaadiyay ee dooxa laga reebay ayaa iyaguna gaadhaya 3 gaari, halka guryaha daadadku ay galeen lagu sheegay in ay gaarsiisan yihiin 49 guri. ciidamada dabdamiska ee Somaliland qoraal dheer oo ay soo saareen waxa sidoo kale ay ku sheegeen in 12 baabuur uu la tagay dooxa weyn ee magaalada Hargeysa. guryaha khasaaruhu soo gaadhay ayaa ahaa 18 guri, kuwaas oo isugu jira buulal iyo jiingado. ciidamada dabdamisku waxay sheegeen in aanay jirin cid wax ku noqotay daadadkaasi iyo waliba roobabkii waaweynaa ee ka da'ay magaalada Hargeysa galabta. 24 saacadood ee u dambeeyay magaalada Hargeysa waxaa ku hooray roob laxaad leh kaasi oo biyo dhigay isla markaana sababay khasaare isugu jira dhinaca maaliyadda. dhinaca kale ciidamada booliiska Somaliland ayaa maanta xidhay biriishka weyn ee looga kala gudbo labada daamood ee magaalada Hargeysa kadib markii uu maray daad laxaad leh kaas oo soo gaadhay dhinaca sare ee biriishka. daadka weyn ee maanta soo maray dooxa magaalada Hargeysa ayaa la sheegay in 15 sano ugu dambeeyay uu noqonayo kii labaad ee soo mara biriishkaasi kaas oo ay ugu dambeysay sanadkii 2005. Somaliland 3 toddobaad ee ugu dambeeyay waxaa si habsami uga da'ayay roobab laxaad leh kuwaasi oo dad iyo duunyaba lagu tiirsaday. meelo badan oo ka mid ah Somaliland waxaa ka jirtay abaaro, hase yeeshee hadda waxaa ka da'ay roobab, waxaana dadka uu Rabbi ka soo jabiyay abaar baahsan oo ku habsatay isla markaana madaxeedii la bilaabay biyo dhaamin iyada oo dadku ay u gurmanayeen dadka degan meelaha ka baxsan magaalooyinka ee dhinacyada hawdka iyo waliba deegaanada kale ee Somaliland. daawadayaal intaasi waxa u dambeysay wararka aynu haynay inta dib u kulmi doono kulanti dambe oo xiiso leh.